موسى بيحي شاعر كيسة وحا هو محمد أو سعيد قيدي wuxuu noo dhisoo kale miskiidkan imika aan taagannahay warkaa aan maqalay ee ninka lagu sheegay annagu mana ogin nin waligiina marcayb xaal baan ka siinay adduunyada qof waliba moodadiisu hadlaa kii halkaa hadalkaa ka soo baxay haddaanu abnahay iyo haddii aanu abtinahayba waxa weeye maxamed aw siciid geedi waxaanu ka raali gelinaynaa hadalkaa ka soo baxay ka ganacsada maxamed aw siciid arrinkiisa inaan ka hadalno maxamed aw siciid geedi waa ganacsade Djibouti iyo Soomaaliland labadaba ah waa ninka sam cable leh waa ninka degmada Saylac ilaa iyo cali xarig xafiisyadiisa ka qoray dadkii deegaankan ee shaqaalaha ilaa 50 qof mishaar qaata wuxuu noo dhisoo kale miskiidkan imika aan taagannahay waxa kale uu sameeyay maxamed aw siciid geedi marar badan buu soo maray maxaan idin qabanaa tuulooyinkeenin badan buu soo maray marka maxamed aw siciid geedi ganacsadaha waxaan leeyahay xaajiga alxaaj maxamed siciid waxaan leenahay jazaakumullah si wanaagsan buu noogu qabtay in badan kale oo ka rajeynayna Soomaaliland dhexdeeda ilaa miskiidada boorama lacag uu ku daraan maqalay marka waa nin khayriyada ka shaqeeya nin xoolaha ka dhintay waadhow lacag loo keenay khayriyada 2000 inuu bixiyo laga sheegay halka marka waxaan leenahay maxamed siciid oo geedi waa ganacsade lacagtii tuuladii ariga uu ku dhintay wadari marka ma geeyo maxamed wax kale iyo dhibaato ma geeyo maxamed waa nin xaaji ah waa nin ganacsada ah waa nin wixiisana noogu deeqa wax kale badan aan ka sugeyno qofka deeqaladka yiri ama dadka qaladada ka sheegeen waxaan leenahay walaalkana ka raali ahaado anagoo ku hadlayna afkii odayada gobolka Sale gaar ahaan degmada Saylac shirka jaraa'id maanta waxaan u qabanay hadal aanu ka aragnay YouTube-yada oo ku saabsanaa maxamed aw siciid geedi iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo ka hadlayay waxa weeye Muuse Biixi shaadkiisa waxa huwan maxamed aw siciid geedi kii halkaa hadalkaa ka soo baxay haddaanu abnahay iyo haddii aanu abtinahayba waxa weeye maxamed aw siciid geedi waxaanu ka raali gelinaynaa hadalkaa ka soo baxay aqalka annagoo ku hadlayna afka degmada Saylac annagoo odayaashiya magayaanu leenahay annagana ka raali gelinayna maxamed aw siciid geedi markii uu tamaandada gurayay iyo markii sigaarka la soo lugeeyay dhowr iyo 80kii waan isnaqaanay waan la soo lugeeyay sigaarka waa niman qabiil aqoon waa nin shaqada yaqaana gobolka degma aan wax ka qaban haday Saylac tahay iyo haday tuulo tahay iyo haday boorama tahay ma jirto saayidka hadkiisa aan joogno ayaa ka koowa madaxweynaha Soomaaliland waxa leeyahay raali ka haw adiguna waxa weeye xagashada waxa keena kursiga doorashada aad mudaysana waan kugu hambalyeynayna waan ku sugaynaa adaan ku dooranay ciidanku waa ciidan qaran yaasha Ciise iyo Samaroonka ee Djibouti ku qabtay shirka jaraa'id ee aanu ka aragnay YouTube-yada magaye in aw siciid hadalka ay leeyihiin maxamed aw siciid geedi magayo waa nin baac musara waa nin aan qabiilhay waa nin ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliland waa nin ay u mid tahay waxaan leenahay odayaasha annagoo inagu abtirsadaan iyo hebel kale oo ku abtirsadaanba waanu ka raali gelinaynaa maxamed aw siciid geedi wax jabhad la yiraahdo iyo wax maxay kale la yiraahdo 19 baa ugu dambeysay iyaga u gaar tahay maxamed aw siciid geedina waan ka raali gelinaynaa madaxweynahana waan ka raali gelin annagoo Ciise iyo Galbuursiya annagoo odayaashii Saylac annagoo labeentiya waanu ka raali gelin ninka maxamed aw siciid waxaan ku naqaanaa inuu yahay muxsiniinta dadku bulshadu waxay u baahan tahay wax u qabto laga bilaabo min loo yacday la hargeysana xafiiskiisa oo dhan ba ka wada furan waa nin ganacsada ninka ganacsadihiina isaga nabadda ka jecel dadka kale sida awgeed waxaan leenahay dadka muxsiniinta ninka tabaaleeyo way bulsho walba wixii ay u baahan tahay u badhigantay ninka u qabto way masaajidka saamka ugu dambeeyo u dhisay bulshada oo magaalada Masaradi waxa dhan loogu xiray imikana waxaanu ka rajeynaynaa jiinkii lagu kicinayay masaajidka loo shidayay inuu noo keeno insha Allah waana la keenaya sida awgeed marka waxaan leenahay waa nin nabadda jecel samafalka iyo wanaagana marka waxa way jecel sida awgeed anagu waxaan u garanaynaa in muxsiniin yahay oo dadka tabaaleeya oo dadka wanaagsana muxsiniinta ugu wanaagsan buu ku jiraa biyahadu ma oga waxa Ilaahay og yahay waxa weeye warkaa aan maqalay ee ninka lagu sheegay annagu mana ogin nin
dee muwaadina oo wuxuu doonaba dadka u qabto masaakiinta iyo wax walba dhaqaaleeya iskiis ugu dambeeyuu dhisay waa kaan hor joogo kaasi saaliha naga ahaado wixii uu mutaysana annagaa nagulayo bixinayna takraali baan ka bixinayna annaga oo degmada sayla iyo sayl oo odayaashii ciisiya gadibuusiba u dhan madaxweynahana isagana waa raali gelinayaa naga raali ahada wixii dee mudarre ah loo geysay afkooguma ku hadlay raggaa hadlay afka iyaga maaha ciidan qaran oo annagu jabhadana ma arag ciidan qaran oo jabhadana ma arag halkaan joogno kuma arag odayaashii baan nahay deegaan ku noolaa xoogaanka ahayee wixii degmada soo gala ogaanaya arkaya maqlayaanna warkaayna waa ku tiri kutaana iyo been ninkaa la eedeeyey inaa Saciid ee walaalkayaa dadka horta Soomaaliland wala joogo iyo dadka Djibouti joogo dadka Soomaaliyeed horta waa dad walaala dad meel kala tagay ma siyaasaduna wax iska dhamaato bariba wax dhamaato dadku san laakiin halkuu ilaahay dhigayeen wax saweeyay ninkaas intuu qabtay odayaha iga horreeya sheegay halka iyo loo yacday halka iyo saacadiin ilaa kaybilka ilaa miskiidka ay joogno ilaa inta boor meel la sii socday la wadanka oo dhan wuxuu qabto loogi waxaan nagu xumaana aan ku sheegayno ma jirto waxa weeye waxaan leenahay walaalkaya arintaasi waxaan ka siinay xaal baan ka siinay adduunyada qof waliba moodadiisu hadlaa ma odhanayna maxay u yiraahdeen kalmada uu yiri ninkaasi odhan mayno waa walaalkayo moodadiisu hadlay waxaan leenahay maxamed Saciid xaajigaasi waa nin dadka u soo jeedo darada ugu dambeysay waxa jiray halkan arigii ka dhamaaday lacagtu soo dhiibuha kolkiiba soo baxsho gargaarka kolkaan ninkaasi waa nin ummadda u dhagan nugul waxaan leenahay arintaasi raali galin baan ka siinayna maxamed Saciid taanu ninkaasi siyaasadda nin ganacsato hor siyaasad ma galo siyaasadda iyo ganacsiga horta laba kala yihiin anu ninkaasi siyaasad isagoo ku jiro oo wali meel ka hadlayo oo hanba xumaan wado ma arag oo hanba meel ka hadlayo ninkana waa nin Soomaaliland u dhashay Djibouti u dhashay labada dalba isagaalee waa dalkiisii mid kasta waa dalkiisii ummadana ummad walaala ummad meel wal kala tagaysan mayna waxaan leenahay halkaasi odayaha iga horreeyay sida u dhigeen weeyaan raali galin baan arinta ka bixinay anagoo labada beelood ee degmada Saylac wala degaa macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahabshiil si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121